Girl, you got me higher than a speedful. Can you stole my heart like a thief? Nobody can love you like I did. maanta waxaan soo qaadanayaa tusaalo gabadh la yiraahdo Caroline Davidson oo samaysay waxaan walaynaa hore u maqasheen markada la yiraahdo Nike gabadhaasi ardayd bay ka ahayd jaamacadda Portland ee Mareykanka ku taala waxay isbarteen ninka asaasay shirkadda oo la yiraahdo Philip Knight ninkaas oo ahaa nin baac mushtari iska yar tuurtuurta oo baac mushtari weyn ahayn laakiin isagu wuxuu ahaa macallin buu ka ahaa jaamacadda wuxuu bari jiray ardayda accounting sida xisaabiye loo noqdo ayuu bari jiray laakiin waa nin aad iyo aad u xiisinayay maxayda orodku jeclaa marka wuxuu arkay dadkan urdaya kabaha gashan yihiin in looga keeno Asia wuxuu shariiday why not wadankaaga Mareykanka inta leeg ee lacagta leh maxaad ugu sameyn weyday kabo in waqtiga waxa soo baxay Adidas oo ka yar horiyaan malaynaya xogaa laakiin wuxuu sameeyay shirkad la yiraahdo Blue Ribbon ma xasuusta laakiin RBS baa loo oranayay shirkadaasi kabaha kuma sameeyeen Mareykanka ee Asia ka dalban jiray xogaa wuxuu rabay horta bal inuu yar dhaqaajiyo businesskiisa si uu wadankiisa ugu asaaso adigu say wuxuu socotaba wuxuu arkay gabadh ka shaqeysa maxaa la yiraahdaa meesha ka dhigata jaamacaddaas ka dhigata gabadhaasi waxay samaysay graphismkay baran jirtay donc ce qu'elle a fait kii dambe wuxuu doonay qof ka caawiya isagoo businesskiisa yar watay kolba kaba yar keenaya oo kolba hadba wax ku biirinaya marka wuxuu sameeyay business buu yar dhaqaajiyay kabu keeni jiray si uu businesskiisa u dhaqaajiyo horta uu keeni jiray laakiin fikrad waxa ku jirtay in wadankiisa ka asaaso shirkad oo wadankiisa ku dhex sameeyo kabaha marka shirkadda wuxuu sameeyay shuraako la galay qoro Japanese mise Chinese bahayna oo Asia oo kabaha u soo diri jiray oo wadankiisa ku dhex iibinay marka step by step wuxuu go'aansaday qoladii bay isdiideen oo isfahmi waayeen uu ka haray wuxuu go'aansaday inay maanta tahay yani waqti uu bilaabo kabaha inuu wadankiisa ka bilaabo ku sameeyo inkastoo imka wax kasta yeeshay laga keeno laakiin isagu waa fikir ku dhashay fikradiisa u weyn waxay ahayd markad wadankaaga waa Mareykan la yiraahdo sameey maaha khaasatan calashan wadankaaga laga dhex sameeyo laakiin markad la yiraahdo markadaasi waa Mareykan taas ay isaga la weyneed marka wuxuu doonay qof ka caawiya jaamacadda uu ka dhigo wuxuu ka helay gabar barata graphismiga si logoyada loo sameeyo sida flyerada loo sameeyo gabadhaas uu la hadlay ku yiri bal ii sameeyay wuxuu ogaaday xataa inay gabadhaasi u baahan tahay lacag ay ku iibsato painting bay sameyn jirtay xitaa waxde ay ku iibsato khadkan lagu taswiro wax tabloyada painting bay sameynaysaa soo lacag bay u baahanad wuxuu ku yiri ii sameey logo garanti gabadhii isagu wuxuu yiri laba shuruudood buu ku xiray wuxuu ku yiri logadaas waa inay noqoto wax ka turjumaya wax duulaya amba wax ordaya wuxuun gabadhii wax meel ay wax ka bilowday garan weyday laakiin yani muhiimadda ilaa markaad fikrad heshid inaanad ka harin fikirka ayaa nii micnaynaya maanta waxay ku bilowday horta xaashad cad u soo baxday waxay qortay garan weyday waxay taswiirtay garan weyday waxay ka bilowday coma virgule wax la yiraahdo coma ayay ka bilowday comadii kolba siday u rogrogaysay iyo markii dambe soo xasuusatay deeska goddess baa la yiraahdo malaynaya Greeka oo wadanka Greega ah ayay soo xasuusto loo oran jiray Nike ma garanaysa loo spell gareeyo af Ingiriisiga laakiin gabadha waxay soo xasuusatay goddesskaasi oo baadkeygii bay xasuusatay laakiin oo fiirsateen mooyaane Nike wuxuu leeyahay sidii baad buu eegyahay aduu see u rogaysay waxa soo baxay loogada ninkan Philip Knight uu degdegsanaa horta markii hore uu ku diiday markii dambe way ku khasbanaatay inuu qaato waayo degdeg buu rabay inuu soo saaro marketing uu bilaabo oo shirkadaas soo hirgeliyo sidii markii lagu qaatay step by step isagu wuxuu rabay khaasatan Adidas inuu ka yardee inuu la yar tartamo oo dadku bartaan shirkadda aduu cala kulli xaal gabadhii bariga wuxuu ku qaatay $2 saacadii inay ugu shaqeyso logodii markay u dhameystirtay muxuu siiyay $35 waa logo dhan oo maanta milyan taagan ayuu siiyay $35
waqtiga kulay lacagtaasi qiimay lahayd laakiin xagan maanta waxaan ka wadaa qof walba oo hami leh oo doonaya inuu wax qabsado oo doonaya inuu wax tarsado oo fikrad hela inuu fikradiisa una ka hadhin xilli u bilaababa mar way dhamaan waa inaad step by step kalba wuxuun ku biirisid waayo gabadhaasi maxay tahay loogada maanta milyuunada bilyanada taagan waxay ka bilowday coma virgule bay ka bilowday donc comadaasi waxa weeyaan in kalba meel bay urogrogtay kolba meel buu rogtay kolba waxbay ku dartay kolba waxbay ku biirisay kamay harin waayo iyadoo waxa la weyneyd inay hesho lacag mushahar ay siisato waxay painting ku samayso aduu intii ka dambeysay ninkii shirkadda way u dhaqaaqday markay u dhaqaaqday wuu mahad celiyay oo horta way u shaqaysay xogaa bay u shaqaysay flyerada ay u samaysay waxyaalo badan oo xayeysiiska ku saabsan bay u samaysay markii dambe maxay ahayd si ugu mahad celiyo waxaan maleynayaa dhowr sano ka hor horta dhowr 80-nadii wuxuu siiyey loogadiyo dahab ka samaysan marna fargal dahab uu siiyey mar aduu lacagyo badan oo la ogeyn inta qiimaheedu taagan yihiin ayuu siiyey gabadhii si uu ugu mahad celiyo xaga waxaan ka wadaa maanta isagu ninkaasi fikirkiisa uu gaaray inuu wadankiisa isagoo xisaabiye ah inuu haddana baac mushtareer bilaabo wixii uu xiiseeyay ka bilaabay wuxuu xiiseyn jiray orodku xiiseyn jiray marka wuxuu ka bilaabay kabo ka bilaabay wuxuu jiray kaba la keenayo waxa muhiim ah inaan maanta la iraahdo wadankaasi markada caynka kabaha buu sameeyaa donc isaga waxa la weyneed inuu wadankiisa u soo saaro markad inuu dadka ordaya ee sportiga sameynaya wuxuu xiiseeyo khaasatan u soo saaro waxay ku isticmaalaan oo la yiraahdo waa markad Mareykan taas isaga la weyneed ayadana waxa la weyneed inay hesho waxay tacliinteeda amba waxay xiiseynayso ku dhamaysato painting ay bilowday graphismiga sameynaysa jaamacad bay dhigata waxa u baantay lacag ay jeebka ku sidato waxa bayadna la weynaa donc qofku hami markuu leeyahay waa inuu hamidiisa ka harin dreamkiisa waa inuu ka harin fikrad baad heshay maanta diyaar uma tiid waxba maaha ku fikir inaad cishada ku sii xigta sii weynayso cishada ku sii xigtana fikrad heshid si aad fikrad u heshid waxa weeye inaad dhaqdhaqaaqdid waa inaad wax doontid waa inaad fikirtid waa inaad fadhiyin waa inaad mar walba hamidaada maalinba maalinta ku sii xigta aad isku daydid inaad qortid sidaad u arkaysid baridaada sidaad u arkaysid saacada ku xiga sidaad u arkaysid noloshaada 3 sano ka bacdi 5 sano ka bacdi 10 sano ka bacdi marka wax weeyaan qofku inuu ka harin hamigiisa fikirkiisa oo runtii lagu dayashdo gabadha loogada samaysay ay uu ka bilaabmay virgule yar amba waxa la yiraahdo coma maxayad ayaduna maanta ay u tahay sharaf weyn inay samaysay logo sida u eg ninkiina kabihii la yiraahdo kabahaasi waa kaba Mareykana meeshii doonaya lagu soo sameeyay beeshiya lagu sameeyo laakiin waa kabo Mareykana marayka dhexdiisa lagu sameeyaan filaya shirkada ku yaalaan marka wax weeyaan qof walba weynu la weynaado hamigiisu hamiga laga ma haro hamigu waa waxa bilaaba in fikirka keena qofku inuu hamiyo waa inuu dream gareeyo waa inuu sawiri karo wax doonay inuu sameeyo marka waliga markaad fikrad heshid ha ka harin inta sanadood doonaysa kugu qaadato ma laakiin waxa shuruud aad isku xidha maalin walba maalinta ku xigta inaad fikirkaaga sii weynayn karto inaad fikirkaaga wax ku biirin karto inaad fikirkaaga kolba sida meel ugu rogrogaysid aad wax tayo leh ka soo saari kartid waxa isku ognahay guul insha Allah